Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu asxaabta iyo walaalihii dhammaan igu xirnaa aad baan idin salaamay isku soo noqosho wanaagsan. Waxaan hore usii gudagaleynaa mowduucyadii hore aan kasoo hadalnay iyo mowduuc kaloo la xiriiro. Maanta waxaan ka hadlaynaa hooyada ku dhashay operationka sidii ay u meyran lahayd ama jirkeedii ay u nadiifin lahayd, habka ugu saxsan, caafimaadkana ay waafaqsan yihiin, ayadana u fiican hooyada ay u meyran karto ama ay u qabaysan karto. Waxaan kaloo leeyahay walaalihii iyo asxaabtii igu cusub oo igu soo korodhay, waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada channelka, insha Allah ka faa'iidi doontiin. Waxaad dib u booqataan fiidiyowadii hore aan aniga usoo dhigay horey, sidoo kalena gambaleelka furta fiidiyo cusub iyo waxyaabihi cusub saad u iskula socono. Insha Allah waxaan hore usii galayaa mowduuceeni maanta oo ahaa hooyada sidee u meyran kartaa, ilaa muddo intee leeg ayay normalkeedii ugu laaban kartaa inay u qabaysato. Hooyada markii la operatiamo ilaa ay boogta karaysato muddo baa u dhaxayso, waxaa la dhahaye ugu yaraan 4 isbuuc ama 6 isbuuc. Meeshii way yara raysanaysaa inkastoo ay qaadato ilaa iyo 2 sano, sanad, muddo adiga 3 years oo kale hooyada ay fiican tahay inay nasato operationka ku dhashay kadib ay uur kala qaado. Laakiin tan hadda ka hadlayno oo noqosaysa caafimaad ahaan ma ahan midaas. Waxaan ka hadlaynaa sidee u meyran kartaa. Hooyada waxay u meyran kartaa habab kala duwan horta isticmaali kartaa, laakiin ma aha inay biyihii caadi ay u dhex gasho. Hooyada waxay sameyn kartaa in jirkeedii madaxa iyo timihii ay dhaqato, si gadaal ay u dhaqdo oo tubo ay isticmaasho qaybtas dambe ay saa ku meydho. Ama waxay kaloo sameyn kartaa inay qaadato towel yar ay jirkeedii biyo intay meel ku shubato warm water ah, biyo qandac oo kale, haddii ay meeshii joogto kululshahayna waa gooni. Laakiin waxaan ka hadli karaa hadda meelaha qabow oo kale ama aan aniga joogo ama dad ila mid ay joogaan oo kale, biyaas kululo qandaca ay weel ku shubanaysaa. Kadibna waxay sameynaysaa towelkeedii yar ama shukumaan yar bay qaadanaya oo jirkeedii ay ku meyrey sidaas kale tartiib ayar inay u saarto ay ku nadiifin. Ama waxay kaloo sameyn kartaa qaybtan kore inay meel sare ay saa u yara foorarto kadib ay ku dhaqdo, haddana qaybta dambe ay ka ilaaliso. Muhiimada loo dhahayo waxaa waaye shower toos inay meel dhex gasho kuma qaadan karto. Waxaa waaye meeshii la operationay oo la qalay inay ka ilaaliso biyo inay gaaraan. Sababtoo ah meesha markii la qala 2 option baa la sameeyaa, ama waxaa la isticmaalaa koolo ama waxaa la isticmaalaa in la tolo. Tolma hadday tahay inaa qodobadaasi ay ka baxaan oo ama qaarkoodna ay jirka dhex galaan buu noqonayaa. Bahalka lagu tolaayo kale dun yaraa jirto oo jirka ku dhex mirmato oo caadi ay tahay. Iyo waxaa kaloo jirto bahal yar koolo sida sharootadii oo kale meesha la saaro, and then after 1 week waa la fiiriyaa dhakhtarka ku laabanaya ama 10 beri kadib hooyada appointment clinic maalintay leedahay ku laaban. Meesha la fiirinaya kooladii ay ka fiiqayaan, way nadiifinayaan, waxay ku dhajinayaan bahal kale oo biyaha ka ilaalinayso. Markaa kadib waxay u sheegi karaan hooyada, ay kula talinayaan boogteeda hadday raysato inay qabaysato, laakiin aysan isku badinin everyday inaysan qabaysanin oo like maanta ay qabaysato beri inay yara tirato towelkeeda isticmaasho, maalinta kale ay qabaysato kale, si aysan biyo badan u dhex galin. Bahal yaro spray ay ku buufinayaan jirto. I don't know in wadankii ay jirto in kale ma garan karin, laakiin bahal yaro lagu buufiyaa jirto oo meesha dhan waxay ka dhigaysaa yacni bacbac oo kale, biyihii ma galayaan way ka daadanayaan. Saasi tahay way ka dhamaan kartaa. Marka laguma dhahayo everyday normal shower kaaga qaado, waa inaad controlshaa. Bahashan sawirka hadda meesha saaran oo kale waa sidaas markii lagu buufiyo kadibna waxaa way qalaleysaa. Waxaan rajeynayaa inaad fahanteen oona ka faa'iideen. Waana muhiim hooyada inay meesha ilaaliso, laakiin sida khubarada caafimaadka ay ku taliyaan iyo dhaqaatiirta waxaa waaye inay sugto ilaa 3 isbuuc, 3 weeks. After that normal showerkeedii everyday way qaadan kartaa iyo anytime ay u baahato. Insha Allah waxaan rajeynayaa walaalaha inaad ka faa'iidaan oo wax badan aad ka faa'iideen channelka. Waana ku mahadsantihiin la joogiina iyo dhiirigelintiina idinkana. Sidoo kale saan u wada socono mowduucyo badan oo idin anfacayo aan mar walba channelka ka heshiin. Waxaan idinka rajeynayaa inaad isla wada socono si aan idin dhaafin video walbo soo dhigo. Gambaleelka furo
meesha aa ku dhufo gambaleelka furo, subscribe saar, asxaabtana u share garee si ay ugu faa'iideystaan walaalaha kale ee u baahan la talin iyo caawinaad iyo waxyaabo badan oo information ah balse aanan jaaniska u haynin. Usii share garee si ay u helaan ama ay jaanis iyo fursado badan ay ugu noqoto. insha Allah hooyo mar walba waxaan leeyahay caafimaadkaagu waa muhiim, waxaa tahay aas-aaska ama laf dhabarka ubadka iyo familka intaba. hooyada waxaan kaloo u sheegay ama u dardaarmaya operationka ah inay nafteedii aada u ilaaliso oo diet fiican oo iyadana waxtar u ah oona culays badan aana u keenaynin inay cunto. insha Allah next topic buu noqon doonaa, waan kasoo hadli doonaa. waxaan rajeynayaa wax badan inaad ka fahanteen. salaamullaahi calaykum.